واي أصل بو حيدا وادي قد ما تي أن كلا دمنا هذه يعني الشيء ما sheeganeen kuma sheeganay sababta ay tahay meel walba reegada lagu haya meel walba sawirkaada yalla isma sheeganeen hay sheeganeen hadaa rabto hadaa dibkayga ajana waxa dibka inaad isu bisad ee bisaba adduunka baad igu joogto dhan antaana adi hayso daaqo hadan dindana iimaani kana in waxbana ii tarin hooyo hadda ana caaban ku soo jeeday malaha aniga waxaan ahay qof duganaan ahay haddii adiga aad dareensan tahay oo adiga aad u fikrayso inaan ku caaweeyay ceebtaan ku soo jeediyay adiga maxay tahay adiga nafsad ahaantaada ceebtaan ku soo jeediyay maxay tahay aniga waxaan ahay anigaan ahay oo nafsadeedaan u ahay laakiinse adiga nafsad ahaantaada waxaan kugu ceebeeyey bar aniga iga dhaadhacsii ma fahansanayba waxa aad nafsadaada aad yeeshay oo soo binaysa adiga ceebay بس يكون عادي عادي كلا شخص بقى من هاي هاي يعني كلا شخص يعني هاي كلا شخص يعني هاي يعني أديك وحي أديك واحد أديك جيسته أي عيب كو إيمانيسا لكن أديك واحد أنا جيسته سيدا عيب كو إيمانيسا أديك أنا نفس الديدة نفس أنا هاي نفس الديدة هاي يعني نفس الديدة محاكم يمسن تتكاس كلها هاي واد ويلكاغو كعبي ما أنا نفس الديدة كم يمسن هاي وأنا ما أدلين مية أديك وانكو دغيسنا يا وانكو مخلا هاي أنا لو حدد والي قبا ينبان قبا انت أصبحان سنة لقبي مال بصور كذا يلا دوارن هاي تاس وارن هاي قبل هذا والقبا وحكة دوغا تاس وحكة دوغا انتهي مالهن أنا عابن كو عيبي مالهن ودي عمالين بالقبا منين علقبا دوال ها وشنسي بعدين واحد ما بعني إيه كرمود وانكو كرمود هو وشنسي وانا هاي أصل ما وان كادنتي باي وشنسي وانا هاي ديوس بانا هاي وحبل وانا هاي اي بانا هاي وحبل هالي وشير يعني وادي عيبي سيل هذا أنا وحن كوكو عيبي وأنا قاعدين كوكو عيبي برئيشك أنا تاسي وان قرن لاي أديك وحا كوكو مهمسن أديك هوي أهانتا وحا أديك كوكو مهمسن dadkaas ku dhahayo waa ceeb waxaas oo adiga waxa adiga sab nafsad ahaantaada aad dareemayso ayaa adiga ii ka muhiimsan adiga idashay waxa ka muhiimsan waxaas dadkaas ay sheegayaan ayaa kaaga muhiimsan niman way isqabaan meel walba dunidan maanta la joogo niman way isqabaan way isla xiriiraan way wada joogaan asal buu xaqiiqada waan ka dhinto hooyo waan kala dhimanay qabrigaaga dhimay maanaha anigana hay sheegan warigaaba waa sidaas waxaad ii soo tartana malaha horta ma been baa lagu sheegay weli anigu waan iska joogay dunidu waan iska joogay ma ahana waad i keento ma ahana wax bini aadan oo loo taro uwadkiisa loo taro ood ii tartay aniga mala been baa la isku sheegay ya meeshaas aniga li qaraac jiray dil jiray oo iskuulka laga soo ceerin jiray waxaad iga ogeed ilaahay unta mala maraamirsinyadaada wuxuu ahaa adiga hooy ahaantaadan ku sheegay maraamirsinyadaada wuxuu ahaa inaad adiga dhahdo uwad kalaad raacaysaa koleeto waxaan kugu daalaya mala ya oo adiga markaad ilmaha dhalayso intaasoo ilma aad dunidan keenaysa ya mise aniga aad keenaysay miya adiga go-aan mi ila tashata aniga dunidan markaad keenaysa markaad leedahay waad ceebays artaan kuu keena maxay tahay wadadkan miyaad isfahmaynin soomaali maxaa naga dhiga aniga soomaali maxamed maxaa naga dhiga وهذه عيبة سيلة أنا محن كوجو عيبة أنا واحد كوجو عيبة ما أنت أديك عن نفس ده أنت هذا كوجو عيبة برئيشة قربان ما لسه شيء هو أيضا عن كل شيء قبل ده أنت سكول كبحسب قبل كلو أيضا إيش قالة وقدكت أمر قبل ده كلامك كيسخر عدم ملح كخر عدو gabadha kale ee ka soo carootay ee guriga imaatay waxay dhigi jirtay hooyoy aniga haddii aad gabadha walaashaada aadan magaceeda aad ka soo carootay mise ka soo tagtay ani ha sheeganin ku laabo mar walba gabadha kale ee la joogtay madaxa ka qaraaci jirtay iskuulka laga bixiyey ee shaqaalo waheed ee guriga subaxda say usoo kacdan la sayday ilaa habeenkii ee guri uga shaqayn jirtay
marka dambena waxay ku khalabtay nafsad ku khalabtay gabadha ayada inay ka cararto walaashan inay ka cararto nin oday oo marka adiga 40 jir ayadoo ilmo yar inay guursato ay ku qasato nolosheeda alxamdulillah shukr maanta ilma meesha ka waday 9 ilmood u dhashay ilaaha u daay waa hooyo lagu sheegay Soomaali been maal isku sheeg waxa lagu leeyahay hooyada waxba hooyo waa tii ku dhashay hooyo iska dhalmiya hooyo tii ubadkeeda ilaaliso ubadkeeda korsato ubadkeeda wax u qabata ma ahayn Soomaali hadana oo ubadkeeda ugaata har iyo habeen hooyo umaalile hooyo way ku dhashadaas miya xaq kugu leedahay asal baan iska kala dhimana waxba yaan is sheegan aniga weligeyga dunida markaan inta aan joogay ilaa hadda waxaan dareemi jiray inaan qofna iga dhalan aniga qofna in la dhalanin qof inuu dhalan dunidan kaliya inaan ahay ayaan weligey dareemi jiray waxaan aniga aan ahayna waan ku dareemi jiray hooyo sama hadda waa nooshahay waxaa la dhihi jiray oo la hooyo naxdin bay u dhimanaysaa waa nooshahay hadda waa taas ila murmaysaba geeradaadana ma imaanayaan is sheeganin caasi samaa caasi kii ugu darnaana aniga naar samaa naarta kii ugu kullaa angalo been baa la isku sheegi waxaa iga hanaajiyey maanta wayna ogeyn inaan duubaa codkeeda inaan duubaa way ogsooneed way jartay telefoonka ayadaa igu jartay igu jaraad sheegayo telefoon dambana ha iga qabanin aniga waama nisanayaaba waama ka idinkaan iga nisanaya interfaadkiina iisoo sheegi jirteen maalin walba aad igu bari jirteen hooyo lacag male lacag iisoo dir kan baa saasa kuus baa saasa guri maxaa u dhisi laado heblow baa saasa sidaa iyeel aad idhihi lahaadeen baaban iga reesanaya idiga reesanaya waxaad ii sheegaysiin mala awooddeedana halkan ku imaaday awooddeeda maanta aniga aan sidan heerkan aan gaarsan aan soo gaarsiiyey awooddeeda maanta aniga aan ku noolaa qof nafsi qof oo aniga familigeyga aan wax ka sheegto ilaahay unta mala banaankaas weeweynta dunidaas weeweynta dib ha loo kala maro ya beental isku sheego meera hooyo waa wiil baariyaan aniga waan baari baan gabar baan guursanaa gabar baan wax beenta in la wado meera weligooda waxba yaana aniga been lima sheegay koleeto waa daawatay klibiyadana klibkan inaad daawato waad arki doontaa maanta wixii ka dambe xor baan ahay xor waxaan ka ahay familigeyga ya niyadeyda had wallahi waxay waan careysana waxaan ku careysana hooyooyinka Soomaalidan u careysana inaan ka sheegay halkan Mariwi laakiin gabar baa shalay iska ooyneysay hooyadeeda sida u soo gashay iska ooyneysay waa hooyaa lagu leeyahay gabdhihii bay ku shaqaysanayaan shaqaale ka dhigan gurigi wiilashii baa sida boqorinta intay jeeftaan sariiraha cuntadii ay karin wiilashii gurigi dharkii u dhaqi ya gabadhina waxay ka tahay gurigaas mala waa iska shaqaale hooyada waxay idii jirtay mar walba idii jirtay gabdhahaas iskuulka ee aadan ya nimankooda way diyaarsan yihiin alaabtooda way gadan yihiin tukaan may alaabtooda tukaan bay yeelaan hore markay ka guursadaan alaabtooda wax walbo nin baa hore u soo shaqeeyay oo bas adiga ya sigaar baa tuugan kartaa baa tuugsan doontaa maadaama aad iskuul aadaynin iskuulka waxaan u aadaynin koleeto way iska dhigatireys iskana indhatireys weligeeda kulligood waa lagu blaamka waa mu adiga qaladka adaa leh hooyo waa garteed baa lagu leeyahay garteeda maxay tahay hooyo hadday dhulkaas ugu hilmaamtay waxba aysan kaa ogeen ilaahay untay ka ogtahay aysan jirin waan ooyay ku leedahay haddaad ooysan ani meeqaan ooynay haweeney dadaar baan ooynay oo ani aabba la'aan u ooynay hooyo la'aan u ooynay walaal la'aan u ooynay ciilkii hayaan u ooynay ilmo idileen u ooynay caydil iyo caynaan u ooynay ya ma ooyin baa wax la iskaga qaaday calool xumada la iskaga qaaday war waxaad ii sheegaysiin mala ilaahay ma geeridaada ma berit imaato geeridaada berit ma imaato sidan had waabad iga dhimatay geeridaada sidan baabay tahayba iga dhimatay waad iga dhimatay telefoonkaygana ma haysid bakan waa kii shaqada hana iga soo wicin haddii aad iga soo cadan kaama qabanayo
ما run baa laisku sheegin sabaan blog baan ku saaray had sida aad ii soo bixin raadi ay kulaad maxaan kugu ceebay aniga maxaan kugu ceebay adiga aan kugu sameeyay adiga maxaan kugu sameeyay kala shakhsiyana laba qof oo kala shakhsiyana noloshaada adiga waxaad adiga galabsaday aniga hadda maanta haddaan wax galabsado oo dadka ay fiiriyaan ceebta aniga aan galabsaday ayaa ceebe adiga ceebtaan ku keenay maxay tahay mise dadkaas waxay dhahayaan dadka bini'aadanka waxay dhahayaan ba adiga ka muhiimsan wiilka adiga dhashay oo 9 bilood caloosh ku soo wada koleeto waxaad iga ogsooneed ma lahane hooyo bambaano hooyo aan jirin ilmo markaan dheeli jirna aan la dheeli jiray baa gurey la dheeli jiray ninkayga waaye ilmahayga waaye beentaas ayaa aniga aan ku dhashay kuna soo koray wax liiga ogsoonaana mala bambaan isu sheeg war caasi maahana waxa doontiin igu sheega waxa aad doontiin igu sheega bye waayo asalba waxaa yidhahda waad iga dhimatay aan kala dhimanna hadde yaana is sheeganin isma sheeganayna kuma sheeganay sababta ay tahay meel walbaba ereygaada lagu hayaa meel walbaba sawirkaada yaalla isma sheeganayna hay sheeganin haddaad rabto haddaad dhibkayga adana waxaas dhibkaad inaad isugusaada eebisaba adduunka baad iigu joogtoodaa maanta adii hayso deeqaw haddaan dhintaba ii imaanin mana waxbana ii tarin hooyo hadda aniga caabaan kuu soo jeeday malaha aniga waxaan ahay qof duganaan ahay haddii adiga aad dareensan tahay oo adiga aad u fikiraysa inaan ku ceebeeyey ceebtaan ku soo jeediyay adiga maxay tahay adiga nafsad ahaantaada ceebtaan ku soo jeediyay maxay tahay aniga waxaan ahay anigaan ahay oo nafsadeedaan u ahay laakiinse adiga nafsad ahaantaada waxaan kugu ceebeeyey bar aniga iga dhaadhacsi ma fahansanayba waxa aad nafsadaada aad yeeshay oo suubinaysa adigu ceebeysay dadka kugu ceebeeyay adiga kala shakhsi baan nahay hooyo ani kala shakhsi aan nahay adiga wixii adiga waxaad adiga geysato ayaa ceeb ku imaanaysaa laakiin aniga waxaan aniga geysto sida ceeb kugu imaanaysaa adiga aniga nafsadeeda aniga hooyo aniga nafsadeeda maxaa ka muhiimsan dadkaas ku dhahayo waad wiilkaaga uu ku ceebeeyey ma aniga nafsadeeda ka muhiimsan hooyo oo aniga imaa dhalin miya adiga waan ku dhageysanayaa waan ku maqlaa hooyo aniga waxaa gaday waa lii qabaa nin baan qabaa intaasoo 5 sana lii qabay meel sawirkaada yaalla dee waa run hooyo taas waa run hooyo gabdhahaada waa la qabaa wax ka dugan taas waxay ka dugan tahay ma lahan ani ceebaan ku ceebeeyey ma lahan nin baa la qabaa la qabaa dee waa haa waan ku kormood ahoo washiinsi waanahay asalma waan kaa dhintay babaay washaysi waanahay duyuus baanahay wax walba waanahay baanahay wax walba haliigu sheega aniga waad ceebeysay leedahay aniga waxaan kugu ceebeeyey oo aniga adan kugu ceebeeyey bar ii sheeg aniga taas waan garan lahay adiga waxaa kugu muhiimsan adiga hooyo ahaantaada waxaa adiga kugu muhiimsan dadkaas ku dhahayo waa ceeb waxaas oo adiga waxa adiga nafsad ahaantaada aad dareemayso ayaa adiga ii kaa muhiimsan adiga i dhashay waxaa kaa muhiimsan waxaas dadkaas ay sheegayaan kaaga muhiimsan niman way isqabaan meel walba dunidan maanta la joogo niman way isqabaan way isla xiriiraan way wada joogaan asalba waxaad idhahda waan kaa dhinto hooyo waan kala dhimanay qabrigaaga dhimi imaanayo anigana hay sheeganin weligaaba sidaas waxaad ii soo tartana malaha horta ma been baa lagu sheegay weli anigu waan iska joogay dunida waan iska joogay ma ahane waad i keento ma ahane wax bini'aadan oo loo taro uwadkiisa loo taro ood ii tartay aniga mala been baa laisku sheegay ya meeshaasaa aniga liqaraaci jiray dili jiray oo iskuulka liga soo ceeran jiray waxaad iga ogeed ilaahay unta mala
maraamirsinyadaada wuxuu ahaa adiga hooyo ahaantaadan ku sheegay maraamirsinyadaada wuxuu ahaa inaad adiga dhahdo ubad kalaad raacaysaa koleeto waxaan kugu daalaya mala ya oo adiga markaad ilmaha dhalayso intaasoo ilma aad dunidan keenaysa ya mise aniga aad keenaysay miya adiga go-aan mi ila tashata aniga dunidan markaad keenaysa markaad leedahay waad ceebays aragtaan kuu keena maxay tahay wadadkan miyaad isfahmaynin soomaali maxaa naga dhiga aniga soomaali maxamed maxaa naga dhiga waad ceebaysay leedahay ani maxaan kugu ceebay aniga wax adiga kugu ceebay maanta oo adiga aan nafsada ahaantaada kugu ceebay bar ii sheeg warbeen maal isku sheegi hooyadan aan kuu sheegayo gabadheeda intay iskuulka bixisay bay gabar kaloo ayada dhashay ee shaqaale uga dhigta oo mar walba gabadheeda kale markay soo kharaacdo madaxa ka kharaacdo gabadha kale ee ka soo carootay ee guriga imaatay waxay dhihi jirtay hooyoy aniga haddii aad gabadha walaashaada aadan magaceedii aad ka soo carooto mise ka soo tagtay ani ha sheeganin ku laabo oo mar walba gabadha kale ee la joogtay madaxa ka qaraaci jirtay iskuulka laga bixiyey ee shaqaalo u ahayd ee guriga subaxda say usoo kacda lasayday ilaa ay habeenkii ee guri uga shaqayn jirtay marka dambena waxay ku khalabtay nafsad ku khalabtay gabadha ayada inay ka cararto walaashan inay ka cararto nin oday oo marka adiga 40 jir ayadoo ilmo yar inay guursato ay ku qasabto nolosheeda alxamdulillah shukr maanta ilma meesha ka waday 9 ilmood u dhashay ilaaha u daay waa hooyo lagu sheegay Soomaali been maal isku sheeg waxa lagu leeyahay hooyada waxba hooyo waa tii ku dhashay hooyo iska dhalmiya hooyo tii ubadkeeda ilaaliso ubadkeeda korsato ubadkeeda wax u qabata ma ahayn Soomaali hadana oo ubadkeeda ugaata har iyo habeen hooyo umaalile hooyo way ku dhashadaas miya xaq kugu leedahay asal baan iska kala dhimana waxba yaan is sheegan aniga weligeyga dunida markaan inta aan joogay ilaa hadda waxaan dareemi jiray inaan qofna iga dhalan aniga qofna in la dhalanin qof inuu dhalan dunidan kaliya inaan ahay ayaan weligey dareemi jiray waxaan aniga aan ahayna waan ku dareemi jiray hooyo sama hadda waa nooshahay waxaa la dhihi jiray oo la hooyo naxdin bay u dhimanaysaa waa nooshahay hadda waa taas ila murmaysaba geeradaadana ma imaanayaan is sheeganin caasi samaa caasi kii ugu darnaana aniga naar samaa naarta kii ugu kullaa angalo been baa la isku sheegi waxaa iga hanaajiyey maanta wayna ogeyn inaan duubaa codkeeda inaan duubaa way ogsooneed way jartay telefoonka ayadaa igu jartay igu jaraad sheegayo telefoon dambana ha iga qabanin aniga waama nisanayaaba waama ka idinkaan iga nisanaya inta rafaadkiina iisoo sheegi jirteen maalin walba aad igu bari jirteen hooyo lacag male lacag iisoo dir kan baa saasa kuus baa saasa guri maxaa u dhisi laado heblow baa saasa sidaa iyeel aad idhihi lahaadeen baaban iga reesanaya idiga reesanaya waxaad ii sheegaysiin mala awooddeedana halkan ku imaaday awooddeeda maanta aniga aan sidan heerkan aan gaarsan aan soo gaarsiiyey awooddeeda maanta aniga aan ku noolaa qof nafsi qof oo aniga familygeyga aan wax ka sheegto ilaahay unta mala banaankaas weeweynta dunidaas weeweynta dib ha loo kala maro ya beental isku sheego meera hooyo waa wiil baariyaan aniga waan baari baan gabar baan guursanaa gabar baan wax beenta in la wado meera weligooda waxba yana aniga been lima sheegay koleeto waa daawatay klibiyadana klibkan inaad daawato waad arki doontaa maanta wixii ka dambe xor baan ahay xor waxaan ka ahay familygeyga ya niyadeyda had wallahi waxay waan careysana waxaan ku careysana hooyooyinka Soomaalida aan u careysana inaan ka sheegay halkan Mariwi laakiin gabar baa shalay iska ooyneysay hooyadeeda sida u soo gashay iska ooyneysay waa hooyaa lagu leeyahay gabdhihii bay ku shaqaysanayeen shaqaale ka dhigan gurigi wiilashii baa sida boqorinta intay jeeftaan sariiraha cuntadii ay karin wiilashii gurigi dharkii u dhaqi
يا قودنا وحي كتهاي قرياس ملا واسك شقالون هو إذا وحي إلي جرتي مروا بإلي جرتي قبلها سكول كي آذن يا نمن كود ويديارسين ين ألابتاد ويقدن ين تكان ما ألابتاد تكان بيالان هرمي كا قرصدان ان ألابتاد وحلبو ننبا هر أسو شقيه أو بس عادية يا سيجار باتوغن كرتا باتوكسن دونتا ما دام السكول آدين سكول كي وحانو آدين كولتو اسكا تريس اسكنا إند تريس ولقيد كل جود والجود بلام كوا أديك خلت كعدا له هاي وقرتاد بالقولي هاي قرتاد محيطة هاي هذا الكاس كوجه المامت وحبة إنسان كأوجين إلى أنت كأوكتا إنسان ترى وان أويه كل هذا أويسن أنا مكان أويناي هبني دار بانوناي وأنا أبلعنا نوينا وهاي لعنا نوينا ولا لعنا نوينا علكي هاي نوينا الميدلنا نوينا عايد اللي عينا نوينا يا ما أوين واحد لسه خاد على الحمد لسه خاد وروح هذا شيء يصير ماله كل إله ما غير هذا ما بريت إمات غير هذا بريت ما إمات سيدنا هذا وابد يقدم متى وغير هذا سيدنا باب تهايبه يقدم متى واد يقدم متى تلفون كي ما بهاي سيد بكان وكيش قد هنا يجي صابع أدا يجي صابع على كام وقبنا هاي ما روم بالشوسين زبان بلاد بابا كساري بهذا السيد هذا يسوي عنده وهذه عيسى كل هذا محن كوجو عيب يعني محن كوجو عيب هذا عن كوجو سمي هذا محن كوجو سمي كلا شخص أنا لو قفوا كلا شخص أنا نولش هذا واحد هذا يقلب صدق أنا هذا ما أنت ده واحد قلب صدق أو دتك إفيريان عرفت أنا عن قلب صدق يا عرفت يا عيب هذا عرفت عن كوك أنا محيطها بس دتكاس وحي دهايان دتك بني آدم كوحي دهايان هذا كامي يمسن ويلك هذا ده شيء وصقال بضع علاش كسوده كل تو حد يقصونه ملهانه هو بنبانو هو عنشرن ilma markaan dheeli jirna aan la dheeli jiray baa guri la dheeli jiray ninkayga waay ilmahayga waay beentaas ayaa aniga aan ku dhashay kuna soo koray wax liiga ogsoonaana mala baan bal soo sheeg war caasi maahana waxa doontiin igu sheega waxa aad doontiin igu sheega bye واي أصل بو حيدا وادي قد متى أن كلا دمنا هذه يعني شيئا ما شيئا كم شيئا سبب إيكاي ملول بابا رجاء لو حياة ملول بابا صور كذا يلا ما شيئا هنا هاي شيئا ما داربته أدا تبكي أجانا وحسب أنا يسوع سعد بسبب الدنيا كبادي وجوب تدا ما تنا تري هاي شو ده خوف ده دنتنا إيه ماني أنا إيه بحبنا إيه تري هاي هذا أنا عيبان كوسو جدي ملها أنا كوحنا قف دوغنا أنا هاي هذا أديك عبدالرحمن سنت هاي أو أديك عبدو فكرة سنة كو عيبي لا بابا أديك هذا بابا لا بابا صبر كذا دكتي لا بابا هذا ده قواد أبس هاي عيبان كوسو جدي أديك محيطها أديك النفس ده هان هذا عيبان كوسو جدي محيطها أنا كوحنا هاي أنا قال هاي ونفس ده أنا وهاي لكن أديك النفس ده هان هذا وحنا كوجو عيبي براني قداد عسي ما فاهم سنيب waxa adin nasadaada aad yeeshay oo soo binaysa بس كوجو عادي عادي كلا شخص بعمل هاي هاي يعني كلا شخص يعني هاي كلا شخص يعني هاي يعني أديك وحي أديك واحد أديك جيسته أي عيب كو إيمانيسا لكن أديك واحد أديك جيسته سيدا عيب كو إيمانيسا أديك أنا نفس الديدة نفس أنا هاي نفس الديدة هاي يعني نفس الديدة محاكم يمسن dadkaas kula haayo waad wiilkaaga uu ku ceebay ma aniga nafsadeeda kama himsan hooyo oo aniga ima dhalin miya adiga waan ku dhageysanayaa waan ku maqlaa hooyo aniga waxa gaday wali qaba in baan qaba intaas shan sano meel sawir kaada yaala dewarun hooyo taas waarun hooyo gabdhahaada waa la qabaa wax ka dugan taas waxay ka dugan tahay ma laha
أنا عابن كعيبي مالهن ودي عمالين بعلقبة منين علقبة دوال ها وشنسي بعد واحد ما بعني إيه كرموز وان ku kormada ho washiinsi waan hay asal ma waan ka dhintay babay washiinsi waan hay duyus baan hay wax walba waan hay ay baan hay wax walba hal igu sheegay aniga waad ceebeysay laad aniga waxaan kugu ceebay oo aniga adan kugu ceebay bar ii sheeg aniga taas waan garan lahay adigu waxa kugu muhiimsan adiga hooyo ahaantaad waxa adigu kugu muhiimsan dadkaas ku dhahayo waa ceeb waxaas oo adiga waxa adiga sab nafsad ahaantaada aad dareemayso ayaa adiga ii ka muhiimsan adiga idhashay waxa ka muhiimsan waxaas dadkaas ay sheegayaan kaaga muhiimsan niman way isqabaan meel walba dunidan maanta la joogo niman way isqabaan way isla xiriiraan way wada joogaan asal waxa yiraahdo waan ka dhinto hooyo waan kala dhimanay qabrigaaga dhimi imaanayo anigana hay sheegan warigaaba waa sidaas waxaad ii soo tartana malaha horta ma been baa lagu sheegay weli anigu waan iska joogay dunida waan iska joogay ma ahana waad i keento ma ahana wax bini aadan oo loo taro uwadkiisa loo taro ood ii tartay aniga mala been baa la isku sheegay ya meeshaas aniga li qaraaci jiray dili jiray oo iskuulka laga soo ceerin jiray waxaad iga ogeed ilaahay unta mala maraamirsinyadaada wuxuu ahaa adiga hooyo ahaantaadan ku sheegay maraamirsinyadaada wuxuu ahaa inaad adiga dhahdo uwad kalaad raacaysaa koleeto waxaan kugu daalaya mala ya oo adiga markaad ilmaha dhalayso intaasoo ilma aad dunidan keenaysa ya mise aniga aad keenaysay miya adiga go-aan mi ila tashata aniga dunidan markaad keenaysa markaad leedahay waad ceebays aragtaan kuu keena maxay tahay wadadkan miyaad isfahmaynin soomaali maxaa naga dhiga aniga soomaali maxamed maxaa naga dhiga waad ceebaysay leedahay ani maxaan kugu ceebay aniga wax adiga kugu ceebay maanta oo adiga aan nafsad ahaantaada kugu ceebay bar ii sheeg qorbeen maal isku sheegi hooyadan aan ku sheegayo gabadheeda intay iskuulka bixisay bay gabar kale oo ayada dhashay ee shaqaale uga dhigtay oo mar walba gabadheeda kale markay soo qaraacdo madaxa ka qaraacdo gabadha kale ee ka soo carootay ee guriga imaatay waxay dhihi jirtay hooyoy aniga haddii aad gabadha walaashaada aadan magaceeda aad ka soo carooto mise ka soo tagtay ani ha sheeganin ku laabo oo mar walba gabadha kale ee la joogtay madaxa ka qaraaci jirtay iskuulka laga bixiyey ee shaqaale u ahayd ee guriga subaxda say usoo kacdan la sayday ilaa ay habeenkii ee guri uga shaqayn jirtay marka dambena waxay ku qalabtay nafsad ku qalabtay gabadha ayada inay ka cararto walaashan inay ka cararto nin oday oo marka adiga 40 jir ayadoo ilmo yar inay guursato ay ku qasato nolosheeda alxamdulillah shukr maanta ilma meesha ka waday 9 ilmood u dhashay ilaaha u daay waa hooyo lagu sheegay Soomaali been maal isku sheeg waxa lagu leeyahay hooyada waxba hooyo waa tii ku dhashay hooyo iska dhalmiya hooyo tii uwadkeeda ilaaliso uwadkeeda korsato uwadkeeda wax u qabata ma ahayn Soomaali hadana oo uwadkeeda ugaata har iyo habeen hooyo umaalile hooyo way ku dhashadaas miya xaq kugu leedahay asal baan iska kala dhimana waxba yaan la sheegan aniga weligeyga dunida markaan inta aan joogay ilaa hadda waxaan dareemi jiray inaan qofna iga dhalan aniga qofna in la dhalanin qof inuu dhalan dunidan kaliya inaan ahay ayaan weligey dareemi jiray waxaan aniga aan ahayna waan ku dareemi jiray hooyo sama hadda waan nooshahay waxaa la dhihi jiray oo la hooyo naxdin bay u dhimanaysaa waan nooshahay hadda waa taas ila murmaysaba geeradaadana ma imaanayaan is sheeganin caasi samaa caasi kii ugu darnaana aniga naar samaa naarta kii ugu kullaa angalo babeen baa la isku sheegi waxaa iga hanaajiyey maanta wayna ogeyn inaan duubaa codkeeda inaan duubaa way ogsooneed way jartay telefoonka ayadaa igu jartay igu jaraad sheegayo telefoon dambana ha iga qabanin aniga waama nisanayaaba waama idinkaan iga nisanaya inta rafaadkiina iisoo sheegi jirteen maalin walba aad igu bari jirteen hooyo lacag male lacag iisoo dir kan baa saasa kuus baa saasa guri maxaa u dhisi laado heblow baa saasa sidaa iyeel aad idhihi lahaadeen baaban iga reesaya iniga
idiga raysanaya waxaad ii sheegaysiin mala awooddeedana halkan ku imaaday awooddeeda maanta aniga aan sidan heerkan aan gaarsan aan soo gaarsiiyey awooddeeda maanta aniga aan ku noola qof nafsi qof oo aniga faamiligeyga aan wax ka sheegto ilaahay unta mala banaankaas waaweynta dunidaas waaweynta dib ha loo kala maro ya beentaa la isku sheego meera hooyo waa wiil baariyaan ahaa aniga waan baari baan ahaa gabar baan guursanaya gabar baan wax beentaa in la wado umeera weligooda waxba yaana aniga been liima sheegayo koleyta waa daawatay klibyadeena klibkeena inaad daawato waad arki doontaa maanta wixii ka dambe xor baan ahay xor waxaan ka ahay faamiligeygi ya niyadeyda hadda wallahi waxay waan caraysana waxaan ku caraysana hooyooyinka Soomaalidan u caraysana inaan ka sheegay halkan mari wiilanka gabar baa shalay iska ooyneysay hooyadeeda sida u soo gashay iska ooyneysay waa hooyaa lagu leeyahay gabdhihii bay ku shaqaysanayaan shaqaale ka dhigan gurigi wiilashii baa sida boqorinta intay jeeftaan sariiraha cuntadii ay karin wiilashii gurigi dharkii u dhaqi ya gabadhina waxay ka tahay gurigaas mala waa iska shaqaale hooyada waxay idii jirtay mar walba idii jirtay gabdhahaas iskuulka ee aadan ya nimankooda way diyaarsan yihiin alaabtooda way gadan yihiin tukaan may alaabtooda tukaan bay yeelaan hore markay ka guursadaan alaabtooda wax walbo nin baa hore u soo shaqeeyey oo bas adiga ya sigaar baa tuugan kartaa baa tuugsan doontaa maadaama aad iskuul aadaynin iskuulka waxaan u aadaynin koleeta way iska dhigatireys iskana indhatireys weligeeda kulligood waa lagu blaamka waa mu adiga qaladka adaa leh hooyo waa garteed baa lagu leeyahay garteeda maxay tahay hooyo hadday dhulkaas ugu hilmaamtay waxba aysan kaa ogeen ilaahay unta ay ka ogtahay aysan jirin waan ooyay ku leedahay haddaad ooysan ani meeqaan ooynaya haweeney dadaar baan oonay oo ani aabba la'aan u oynay hooyo la'aan u oynay walaal la'aan u oynay ciilkii hayaan u oynay ilmo idileen u oynay caydil iyo caynaan u oynay ya ma ooyin ba wax la iskaga qaaday calool xumada la iskaga qaaday war waxaad ii sheegaysiin mala ilaahay ma geeridaada ma berit imaato geeridaada berit ma imaato sidan had waaba iga dhimatay geeridaada sidan baabay tahayba iga dhimatay waad iga dhimatay telefonkayga ma ba haysid bakan waa kii shaqada hana iga soo wicin haddii aad iga soo cadan kaama ba qabanayo ma run baa la isu sheegin sabaan blog baan ku saaray had sida aad ii soo wicin raadi ceeysay kuleeda maxaan kugu ceebay aniga maxaan kugu ceebay adiga aan kugu sameeyay adiga maxaan kugu sameeyay kala shakhsiyana laba qof oo kala shakhsiyana noloshaada adiga waxaad adiga galabsaday aniga hadda maanta haddaan wax galabsado oo dadka ay fiiriyaan ceebta aniga aan galabsaday ayaa ceebe adiga ceebtaan ku keenay maxay tahay mise dadkaas waxay dhahayaan dadka bini'aadanka waxay dhahayaan ba adiga ka muhiimsan wiilka adiga dhashay oo 9 bilood caloosh ku soo wada koleeto waxa adiga ogsooneed ma lahane hooyo bambaano hooyo aan jirin ilmo markaan dheeli jirna aan la dheeli jiray baa gurey la dheeli jiray ninkayga waayo ilmahayga waayo beentaas ayaa aniga aan ku dhashay kuna soo koray wax liiga ogsoonaana mala bambaan isu sheeg war caasi maahana waxa doontiin igu sheega waxa aad doontiin igu sheega bye bye